ruushka ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta ku xadgudubka xuduudihiisa iyadoo loogu marmarsiyoonayo xorriyadda kala gooshida maraakiibta, isaga oo ku hanjabay inuu ka jawaabi doono tallaabooyin heer militari ah kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay Arbacadii markab dagaal oo Ingiriisku leeyahay oo marayay meel u dhow jasiiradda Ruushku xoogga ku haysto ee Crimea. wasaaradda arrimaha dabadda Ruushka waxay tilmaamtay inay ka sugayaan safiirka Ingiriiska jawaab macquul ah oo ku saabsan soo galitaanka markabka Ingiriiska ee sharci darrada ah. isla arrinkan ayuu goordhaweyto afhayeen u hadlay aqalka Kremlin ku sheegay in milatariga Ruushku si adag mustaqbalka ula macaamili doonaan daandaansi kasta oo la mid ah wixii markabka Ingiriisku sameeyay, laakiin waxa uu si cad u sheegay in Ruushku uusan u aqoonsanayn Ingiriiska cadow ka soo horjeeda, wuxuuna rajaynayaa in daandaansiga noocaas aan lagu soo celin doonin mar dambe Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in xabado digniin ah uu ku riday markabka Ingiriiska oo lagu magacaabo Defender si looga ilaaliyo biyaha Ruushku sheegtay inuu leeyahay ee xeebaha Crimea. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sidoo kale daabacday cajalad fiideo ah oo ay ku sheegtay inay muujinayso sida ay markabka u gooshayo iyo rasaasta digniinta ah ee lagu ridayo, waxayna sheegtay in markabka Ingiriiska oo loogu yeero Defender uu dhex galay ku dhawaad 3 kiilomitir biyaha badda ee u dhow Cape Violent oo ah goob u dhow dekedda Ruushka ee Svetospol iyo xarunta dhexe ee maraakiibta badda madow ee Ruushka. laakiin London ayaa ganafka ku dhufatay sheegashada Ruushka iyada oo sheegtay inay rumaysan tahay in rasaastaasi ay ka mid tahay dowlatuska ciidamada badda ee Ruushku baryahan ka waday badda madow, waxayna beenisay in dhinaca Ruushku ay soo tuureen wax rasaas ah, laakiin waxay xaqiijisay inuu markabkeedu soconayay meel ay ku sheegtay biyaha Ukraine. khubarada milatariga ka faallooda ayaa sheegay in dhacdadani ay u muuqatay mid sii kordhinaysa iska horimaadyada u dhexeeya reer galbeedka iyo Ruushka ee ku aadan marinada badda ee lagu muransan yahay.